iyadoo bilihii ugu dambeysay uu marba marka ka dambeeyay si xoogeysanayo muranka xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda dhanka qabsoomidda doorashooyinka oo ka dhashay magacaabista komishanka cusub gaar ahaan soo magacaabista madaxweynuhu uu ku soo magacaabay riya raac oo ay xisbiyada mucaaridka ay si weyn uga biyadiideen iyagoo ku tilmaamay xubintan in uu yahay xisbiyahan waxayna cadeeyeen inaanu dastuurku ogolayn qof ka mid ah xisbiyada qaranka oo ka qayb galay ololihii doorashooyinka uuna soo bedesho madaxweynuhu intaa kadib waxa soo jeedintaasi ka dhaga adeegay isla markaasina aan u joojin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi una gudbiyay xubnihii komishanka qaranka baarlamaanka dawladda Soomaaliland oo la diyaarinayo sidii baarlamaan cusub loogu bedeli lahaa isla doorashadan haddaba baarlamaanka ayaa si duuduub ah ku ansixiyay xubnihii komishanka ee uu madaxweynuhu u gudbiyay oo ka maqnaa xubintii uu soo magacaabay xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxayna arintaasi sababtay inuu ku dhawaaqo xisbiga mucaaridka ah ee wadani inay taageerayaashiisu isugu soo baxaan xarunta xisbiga caasimadda dalka ee Hargeysa waxaana si weyn uga hor yimiday xukuumadda isu soo baxaasi ilaa ay gaadhay in la xidhxidho xoghayaha guud ee xisbiga wadani iyo afhayeenka xisbigaasi tiyo ina dhicin weli isu soo baxaasi oo ay xisbiga wadani aroortii isugu soo baxeen xafiiskooda oo booliisku isku dayeen inay baajiyaan isku soo baxaasi khilaafyadan ayaa marba marka ka dambaysa si xoogeysanayay iyagoo shacabka reer Soomaaliland gacanta farta ku hayeen ayaa waxa soo dhex galay culimada ugu waaweyn dalka iyo waliba aqoonyahanka ganacsatada waxayna khilaafkaasi ka soo saareen go'aamo ay u soo jeediyeen xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda isla markaasina si wadajir ah ay u aqbaleen kulamana ka yeesheen madaxweynaha xisbiyada mucaaridka ahi sidii uu sharciga u waafajin lahaa madaxweynuhu iyadoo halkaasi madaxweynuhu uu ballama qabsaday ballantiina ay dhammaatay welina ay halkii taagan tahay ayaa qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka qaybihiisa kala duwan ee reer Gabiley fikradahooda ay ka dhiibteen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xisbiyada mucaaridku inay xubin la soo magacaabay diidaan xaq ma leh dastuurkuna ma fasaxay waxa uu taalaa baarlamaanka inay diidaan iyo inay yeelaan madaxweynuhuna nin xisbiga ka mid ah oo cadeymihii la hayo inuu isna soo magacaabo ku qaldan yahay laakiin ninka riya raac la yiraahdo waxaan oran lahaa maadaama dantii dalku isaga maanta murankeedii ka taagan aan wadan halkiisa ku jiro waan isxasiili lahaa oo waxaan oran lahaa xisbiyada mucaaridkana raalli ahaadaan xukuumaddana waxaan oran lahaa warde magacaabisteediiba khilaaf ka yimid garanaysaa inaga daaya dan isaguna uu ku sii caragsanayaa xitaa guddoomiye markaa imika u sharaxay marka siyaasadda dalku waxaan ku soo hal qabsanayaa sheeko waxa la yiri baalka xaaska la yiraahdo Soomaaliland markuu ugaadhsanayo shayga ugaadhsanayo qabtaa uu dilaa uu cunaa markuu cunu ooyaa marka dambe marka xisbiyadan mucaaridku shacabka waxay tusayaan waa ilmadii xaaska waana karaama dhac qeyrkeena waanu kaga harayna ma aha inaanu inagu albaqra marayna alif joogsano kolba madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha midida daabkayga haye adigu doorasho say ku dhici lahayd ee ugu dhaqsaha badan qabo markastaba inay nagu soo noqoto maaha waa la kordhiyay doorasho la qaban kari lahayd maxaanu qabsanay kala hadii doorasho qaban kari weyn doorashayna waqtiga isaga luminaba maahaba Soomaaliland danaheegi ku seegta ma muran imika waxay noqotay joogto aan madhaleysay noqotay waxaan leeyahay madaxweyne doorashada qabo sidii suurtagal ay ku noqonaysaba ku qabo horta arigaas wixii la muuqda waxa lagu heshiiyo ee la aqbalo ilaahayna uu ku arkayay oo lagama baxa ahdiga waxa kale oo qurux badan inay dadku markay wax ku heshiiyaan wixii la fuliyo raggan imika komishanka la sheegayna haddii garsoorka dadku ku kalsoonaan waayaan waxa qurux badan bay iscaasilaaniyo oo iska tagaan shaqada iska dhiibaan maanta uu soo haray Muuse oo Muuse si wanaagsan 80% la doortay waxa looga fadhiyay iyo wax qabadkiisa inaan wadanku muran ka jirin oo waxa la wixii muran uu soo afjaro doorashooyinka lagu muransan yahay sidii ay guurtidu sheegtay ay gudidii ay magaranaysaa soo magaranaysaa soo jeediyeen ee la qaatay inay sidoodii ay u fulaan oo muranku soo noqon dadkuna wuxuu qabaa imiga arrimaha waxa lagu sameeyaa ee xisbiyadan asxaabtana magaranaysaa inaasay arrimaha ku jira waxa weeye waxa la idinku simayaa xilligii sharcigu sheegayay in asxaabtii faraha badnayd la furo sida uu yooyootamayaan oo qeylqeyliyaan in lagu gaarsiiyo maas xilligii asxaabta faraha badan la furayay madaxweyne waxaan ka codsanaynaa buuqan wadanka halka uu ka jiro hadaan midida daabkeeda hayeen xalliso wixii khilaafaad ah jira hadday xisbiyada tahay hadday ummadda tahay
inaad soo afjarto. waa Cabsalaan Maxamed Bade, Bulsha TV, Gabiley.